Dowladda Japan oo lagu tiriyo dowladaha ugu horumarka badan dhanka tiknoolajiyadda iyo wax soo saarka ayaa maanta waxaynu ka hadli doonaa waxyaabaha ugu la yaabka badan ee ay soo saartay ama ay soo ikhtiraacday dalkaasi Japan. Haddaba qodobka koowaad ayaa wuxuu inoo noqon doonaa cidiyo jar. Cidiyo jartan ayaa waxa ay ka duwan tahay dhammaan cidiyo jarrada caadiga ee anagu naqaano ama aan isticmaalno. Cidiyo jartan waxay leedahay ama ay ka kooban tahay 5 god kuwaasi oo awood u leh inay jarto cidiyahaada hal mar gabi ahaanba. Lambar 2. Saxarada bani aadamka ay u bedeleen cunto in la cuno ku haboon. Lambar 3. Kabo ka caawinayo inaad disho baranbarada. Haddii aad tahay qof ka cabsada baranbarada, waa inaad raadsataa ama aad soo gadataa kabahan si ay kaaga saacidaan dilitaanka baranbarada. Lambarka 4. Xilliyada lagu jiro qabowga daran ayaa waxa iska caadi ah inaad xirato jaakad ama dhar adag oo ka difaaca qabowga. Haddaba dowladda Japan ayaa waxay soo saartay dhar gabi ahaanba jirkaada dabooli kara kaasi oo awood u leh inuu ka difaaco qabowga kaaga imaanaya banaanka. Lambarka 5. Inta badan sida caadiga ah marka aynu ku jirno howlaha adag waxaynu isku daynaa inaanu ku nasanno ama aan ku yara seexano gacanta. Haddaba qalabkan ayaa waxa uu ku diidi doonaa inaad barkato ama aad ku seexato gacantaada maadaama ay ku xiran yihiin masaabiir kuwaasi oo ku mudi doona xitaa haddii aad isku daydid. Qodobka 6. Indha beena ama artificial oo la dul saarto wajiga kuwaasi oo ku saamaxaya ama ku ogolaanaya inaad iska hurdo xilliga aad joogto goobtaada shaqada, taasi oo ka ilaalinayso inuu ku arko managerkaada ama maamulaha shaqada. Lambarka 7. Dowladda Japan ayaa waxay soo saartay khamri ay ugu talagashay carruurta yaryar maadaama aan ognahay inta badan khamrigu inuu yahay waxa uu isticmaalo dadka da'doodu ay weyn tahay si loogu fogaado inay waxyeello ama dhibaato ay gaarsiiso ciyaalka yaryar. Khamrigaasi ayaa waxa loo soo saaray xaddi ayaga u dhigma amaba ay isticmaali karaan. Lambarka 8. Dowladda Japan ayaa waxa ay soo saartay gacan artificial taasi oo ka caawinaysa xilliga aad ku jirto jikada diyaarinta qudaarta oo kale maadaama laga yaabo in dad badan oo inaga mid ah aysan ku kalsooni qabin isticmaalka mindida. Haddaba gacantan artificialka ayaa waxa ay noqon doontaa mid ka hor istaagta amaba ka dheeraysa dhaawac ka soo gaara mindida.